واي بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa Siciid Ismaaciil Sheekh Ibraahim. waxaan ahay tafatiraha majalada Somaliland Chronicle. maanta waxaa inoo martiya madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi, oo xilkaa hayay muddo 7 sannadood ah, halkaasi uu wareejiyey bilowgii sanadkan. waraysigeennu maanta markaa uu ku koobnaan doonaa, ama uu inta badan magaranaysaa si gaara uu eegayaa baadidoonkii aqoonsiga Somaliland iyo meelaha badan ee magaranaysaa ay arrintaasi nala gashay. madaxweyne soo dhowow, aad iyo aad baad ugu mahadsantay waktigaaga. markaa waxaanu samaynaynaa, bal si waktigan aan u dhowro sida ugu dhaqsaha badan baan doonaya su-aalihii ugu gala. su-aasheena koowaad waxay ku bilaabmaysaa, xukuumaddaadu markii ay cusbayd, istaraatiijiyadda arrimaha dibaddu waxay u ekeyd colka wadhaf ma lagu dayey, oo meelo aad u fara badan oo weliba ay ka mid tahay wadamada africa oo kale, sida hadduu bedankeeda leeyahay malawi iyo guinea conakry, oo adigu weliba ta dambe aad tagtay. markaa waxaad moodeysay inaad yaro bilow ahaydeen oo aad magaranaysaa waxyaabo badan. horta bal halkan ma lagu dayay, halkan ma laga eegay. haddana magaranaysaa marka dadku ay dib u eegaan, qaarkood ay falcelin badan ka samaynayeen oo ay u eg tahay inaan maxsuul badani ka soo bixin. bal bilowgaa hore ee xukuumaddaada nooga yaro sheekee sidii ay ahayd, magaranaysaa istaraatiijiyadda iyo policyga arrimaha dibaddu, iyo saad bal waxay u raadinayseen. بسم الله الرحمن الرحيم. aad baad mahadsan tahay. bilowgii aanu bilowno shaqada, sida xukuumad waliba ku waajibaha ay samaysaa caalamka oo dhan. xukuumaddu marka hore waxay samaysanaysaa dee bolisiga ay ku shaqayn lahayd 5 sano, iyadoo ka duuleysa kolba xisbiga ay kasoo baxday barnaamijkii u yaalay anaga xisbiga kulmiye. marka dee dhinacyo badan baa laga eegayaa oo horta arrimaha dibaddu, wasaaradda arrimaha dibaddu waa muraayadda adduunka uu ka dheehanayo hadba siyaasadda gudaha ee dalka. siyaasaddu way wejiye badantay, laakiin marka horeba dalka waxaa la eegayaa awooddiisa dhaqaale, aqooneed, ciidan iyo wixii la mid ah. resource haddii laga eegayo, oo imika adduunku wuxuu wasa dhulka hoostiisa malaha dushi, wixii adduunka sare waa la dhaweeye. marka haddii aanay arrintaada guduhu muraad wanaagsanan bixinaynin, dalalka ada xidhiidhaysa dee in badan bay hubsanayaan. marka waxaynu nahay dal xorriyaddiisii lumiyey isagu, oo baryihii dhexdankii baa jirta ingiriiska iyo waxa tiri maxmiyadii gobonimada diiday iska bixisay. marka soo gooshadii adduunka inta laga dhaadhicinaya awooddeennii dhaqaale iyo haddii la idhaha miidiya iyo aqoon ahaaneed, dee 91kii arrintaasi ilaa iyo 30 ilaa dhowr iyo 20 weyn ugu dhib badnayd. marka waxaanu si ay dee arrimaha dibaddu u fusho, oo mudnaanta koowaad arrimaha dibaddu waxay noqotay aqoonsi in la helo oo adduunka lala xidhi karo la isfahamsiiyo. marka waajib waxa weeye albaab walba garaacda. marka waxaanu qaadanay siyaasad odhanaysa dadka iyo dowladaha tii kasta ee markaynu isu sheegno waxaanu nahay hebel, waxaad odhanaysaa anigu hebel oo caynkaas waxaasaan kaa doonaya, waxaa waa inuu cadi. marka caalamka oo dhan waxaan u diray waraaqo dal walba, ku necab iyo kuwaan ku aqoon iyo kuwaan ku hareerayn iyo ku laga yaabo wax yar baa kasoo jawaabay. waxaan u sheegaynay in koobanuun inaanaan ahayn goosasho, oo aanaan xeerka afrika jebinayn, inaanu ahayn dowlad intan imika aynu aad kor u qaadina dhegaystay. sidaa darteed
aan u baahnay ma ahana aqoonso uma dira waraaq waxaan ahay aanu ka wada hadalno oo aanu idin fahamsiino ood naga dhegeysataan kayskayga marka in albaab walba la markaa garaaco. geenay waxay 19 bay ahayd waxaa jira shir uu lahaa midowda africa oo lagu qabanaya niger halkaa galaangal laga sameeyey oo rag badan oo dibadda ka shaqeeya oo qaarkood aqoon badan u leeyihiin siyaasadda caalamka ay xidho badan leeyihiin ayaa waxay sameeyeen in shirkaa aanu ka qayb galno oo haddii la waayo official ciidanka in rasmi loo marti qaada in la ogolaado inuu ka loob galayno shirkiisa Sidelines. ha kolkaa dowladihii arrintaa markaanu qoray ka soo jawaabay eeri waa diyaar baan inaan ka dhageysano waxaa ka mid ahayd Guinea Conakry oo oday weyn oo qaranqaraa marka dambe uu joogay Alpha Conde. kolkaa ninkaasi wuxuu lahaa taariikh aad iyo aad uu in badan u soo dagaalamayay dimuqraadiyadda iyo xorriyadda oo 40 sano soo mucaarid ahaadoo dadka u cawda dowladaha dhibaato dhan u dhegeystaa wuxuuda laakiin wuxuu ahaa nin aad markaa u da'weyn marka markii aan u qoray waraaqo badan oo ninbaa aanoo dhexeeyey aan ku heshiinay wax walba inuu aad iyo aad ugu qanacsan yahay doorashooyinka nabadgelyada aan kale kaga duwanahay qoladan afraysan inama taqaanaba inama kala taqaanaba magaceena waa ku adkaaba sidaan ku tagnay si wanaagsan buu soo dhaweeyey waa la wada ogeytaa marka arrinta waxaad ku qaadeen meel aan wax badan ka soo bixin anigu waxaan qabaa inay ka soo baxday furaha maaragtay marka guriga la furaaya in yar ee magaca Soomaaliland Afrika maqashiyey inuu ahaa shirka socdaalka waayo waxaan ku heshiisahay in maalinta shirka la furaayo ka hor aanu soo wasiirkiisa khaarijiga oo Niger ilaa hudheelka ba haddaan degan oo aanu shirka loo galayno waxa sii tagay rag kale oo diblomaasiyiin oo Soomaaliland oo ka soo shaqeeya meelaha ee Niger markaa ku sii socday iyagoo tagi lahaa oo dalalkay ka joogaan ka imanayay iyaguna wada rag dee ina gargaara kolkaa qolada xamar borotokoolka ayna siiyeen markay arkeen waxaanu ballansanay odayga habeennimadii 7 afartii meelaha ayay xidhka u jareen markaasay waftiga cabasheen oo iyo jeermankeeda u direen Right. markaasay marka wax xidhiidhana mala dee. xiriir haagsana male waxaa kaloo kaashadeen dowladaha sida Egypt Masar oo kale iyo qolooyin ka soo horjeeda oo dimeesha atorayaala oo miiska garaacayna waa sideysaan Right. marka odayga waxaa ku dhacday jug aan la filaynin dee ismuu lahayn halkaasay ka dhacaysaa hawsha qolada in aad caawinayso. toddoba habeenimo yidhi baraafidaan isku arago waryaha waxaad caawada socotaa waxaad ku keliga ay kaale waanu tegey marka dee wuxuu sheegay xaqada wuxuu yidhi brashinkaana waa wati sana naga dhabeex waanu ku qanacnay wixii waraaqaad wasatay dokumentiga taariikhaan akhrinay waanu baarnay dad badan oo xaalka ogna waanu waraysanay markhaatigeeda la isku furay hase yeeshee ee dee nimankii shirka Afrika ayaa jeermankoodii iyagoo culays kaga yimid wala arrintaasi dacwad baa lagu haystaa waa la dacwaday markaa maaha waan ku geyno qola dacwad baa lagu qaaday dal Afrika farageliye oo kala gooyey baa laga dhigay weliba dee Masar oo ilaa xilligaas dee dadku intan mar walba iyadu haddii la soo qaado 2 qolo haddii la soo qaado 3 qolo haddii la soo qaado Soomaaliya iyagu safka hore ku jiraan waa Qatar waa Masar iyo Soomaaliya waa isku baray haddaba intoodaba waxaan jeclahay inta kale cid saa isu cadaysaa dalal badan oo diidan baa jira Soomaaliland inay laakiin sidaas soo muujiya marka waxaan qabaa shirkaasi wuxuu ahaa shir aad iyo aad u wanaagsan socodkaas kuwa ugu faa'iido badan baa waayo korbu inoo qaaday shirka Afrika dhexdiisa horta dhaartii laga qabto horta weliba cabashadan ku gadaamanay tan waxaan waraaqo badanna waanu ku qaybin shirka waxa la diyaarinayay oo markaa isagana aad ragga isqaanan u wadeen gabar baa ahayd wasiiraddii Niger ayaa iyana markaa sympathetic noo ahayd horta halkaa dee dagaalkaa la qaaday baa
ayay gabadeen laakiin wuxuu ahaa waxtar weyn wax magaceenna waxaan u baahanahay in dad badan ogaado inoo garaabo kor loo qaado kaas ahayd weliba markaa dee halkaa waxaan ka dhadhansanayaa inagu dee maaha ma Nigeria oo kalaa oo waa 100 iyo intaasoo milyan ma Ghana oo kalaa war horta bal dadka hala hadla cid walba ma geeyo labadaba waftigooda uu nala joogay Nigeria markaan ka soo noqono shirka inaan marro diyaar wahay oo isagu uu ka hadlay Ghana iyada qolo kala hayso iyadoo ka dhaweyd Ghana waxaan ka dhaweyd in badan ba xaalkeena taqaanay barigii riyaale ina ducaale markii uu joogay aad baa xidho laha oo ninka imika la doortay xitaa uu yaqaana Soomaaliya Ghana waanu u hadalnay baasha maxay ahayd Uganda ka jooga Museveni oo muranay Museveni baad isku aragtay Guinea Conakry maya telefoon ku hadalay markii dowladda qabdirayay ayuu yiri maxaad kala goynaysaa Soomaaliya tagaasoo korsan ku maxaad adigu taasana ugu soo dushay Itoobiya ay xulashay madaxda soo noorey markuu dulmiga keenan la soo xoreeyo way marka adigu shirkaasi saasoo ah ta siyaasadda islaajiga waxa weeye horta siyaasadda arrimaha dibadda dhibaatooyin badan baan haystay oo imikana ay noo socdo weli siyaasadda arrimaha waa philosophical waa siyaasad guud dalku wuxuu leeyahay maxaa ii dana gudaha maxaa ii dana maxaa inoogu dara gudaha Soomaaliya waxa weeye dhaqaale xun shaqo la'aan ayaa taal dhaqaalihiina macdana laguma qodi karo dahab dhimo soo aragtid ilaa aad hesho wax ku taageera u bareero kolka shaqaalaha gudihii waa in la sifeeyaa waxaan ku dalay dhaqaale istaago oo shilinka Soomaaliya ahaa aan dhaqaaqin waayo dadka inta badan waxay ku nooshahay Soomaaliya doolarka in yar ba haysta oo dadka Soomaaliya ku dhibta baarka marka in xasiliyo horta shilinkii uu istaago saddex sano bad muu dhaqaaqin laba dadkeena oo jabhad ka soo baxay oo marka hore aan dowladnimada markii muddo dheer aan haysanay markii Ingiriiska keenay markii ay ka lutay oo qaasan oo kala wada shakisan oo si koox iyo community iyo maaragtay aan qof tarawtaasi badkooda in la isku hayo sida quraha imka la isku hayn karaa wax ma ku maqleen waxa weeye dimuqraadiyad baanu qaadanoo doorashooyinka waqtigooda waan qabtaa doorashooyinku waa waxaan kuwa ugu lacag badan adduunka imanka dowladaha reer galbeedka ee baasha bartiyo waxa laga yaabaa haddii la isu qaybiyo inta codaysay iyo dhaqaalaha inuu doolar ku soo hayo qofka codeeyay inaga waa qiimaha ugu qaarsan ma jirto $7 iyo xurmar مستدير وها فرح تاكتر وقت شركتنا waxay noo qodayaa waa 500 qof oo bato 600 qof waxa kaaga baxaya 20 milyan $. waa doorashooyinka ugu qaalisan adduunka ugu dhib badan itaalkeena kama go'o marka waxa qasab inaan doorashooyinka qaban waayo baarlamaanku wuxuu marayay dhowr iyo 10 sano تدوره هو سوى توني يلا إما سجل بلو كردي بارلمان كي دولة هو سبري لا استيد قولي ده شيء هو مسؤول فري مركزي دجالما يا ولي مركز ترى أهلا دورتنا وشرعي ولا كودي ديار وشرعي كل عياريان و تدي مارسي دنت أدمد إن دافع أنا حوالي waa grown pains oo de qof waliba halkiisaasu dee xajisanayaa laakiin haddana maxay keenaysaa hawshaas dadkii oo dee hadday doonaan qoryiisooda baxayo oo si community oo caadifadaysan oo qaranka aan arkaynin dee inaad ku hayso dhibaato xoog leh marka waxaan saaray inaan noo war dhaqaalaha horta shilinka dejiyo aan hayno number 2 doorashooyinka waynu qabanaa waynu illa qabanaa muddo dhaafka waxa keenaya dhaqaalan lahaynin waxa la markaas 2 sano la korinayo dhaqaal lama hayo degenaansho lama hayo number 2 dhibta kala soo baxay waxay mucaarad lama yaqaan markuu qofku mucaarad yahay inuu dalka u turo iyo inuu burburiyo ku jecel hal waayo tagay looga baxo waxay in doorashooyinka aanu qabanana waxa siyaasadda ku tasax shaqala maxaa dhalinyarada laga qaban karaa waanu qiyaasnay dawladdu intee sano qaadi kartaa maxaa dhaqaale kordhi kara shaqo qaran baa baro oo dhalinyaradu aad iyo aad rajo u qabtay waxbaa ka hor yimid marka dambe doorashooyinka la galay dhaqaalahoodii iyo dagaalada dhexdeeda ka dhacay waxa way qaadatay laakiin waxaa dhacday marka dhili hala qabto iyaga hala qabto dee waxa ka soo baxay jaamacadina waxay soo doonayaan kumaanku markaa tiraa 500 baan qaadanaya oo dowladda culays weyn ku ah oo haddana inaad shaqaalaysiiso
oo si daba shaqaale kortaan iyana xalkeedu waan helo waan ji markaanu dibadda u soo jeesana farsamadii markaanu qaadanayna adduunkan ka iibina dimuqraadiyad nabad intan imika waana wadno waxay timid diblomasigii waxa weeye waa tiknikada fulisa siyaasadda arrimaha dibadda aad doosto see dowladda ula xidhisaa abrojka qof ma yaqaana dadka ma ka dhacsiin karaa ma la fahmaya ciidka kale waxay leedahay dee kuwaasina way inagu yaryihiin soomaali ahaanba weliba inta bahalahan google kan iyo technologigan ayaa wax badan la bartay waaweyn way ku dhibaan haddana u dabaalanay marka arrintaas saasay taa hore waynu ku soo noqonaynaa arrimo badan oo aan doonaya inaan kaala hadla yaro taabatay inkastoo muxuu ahaaye ay inta badan aan doonaya arrimaha dibadda marka soomaaliyaad soo qaaday oo dee weligeedii allaheed dee dacwadiina la daba taagnay laakiin ta aan doonaya inaan ku bilaabo waxa weeyaan wadahadalladii wadahadalladii somaliland iyo soomaaliya oo aan u malaynaya inay soo bilaabmeen xukuumaddii adiga kaa horreysay allaha u naxariistay madaxweyne siilaanyi adiguna aad sii anba qaaday haddaba intaynaan weliba waxyaabo badan oo dee meelaha ka dhacay oo magaranaysa aynaan gudagelin idinku ka xukuumad ahaan maxsuulka aad ka filayseen wadahadallada muxuu ahaa horta aan kuu sheegay markaa uu silaahi joogayba dee guddoomiyaha xisbiga lahaado waan ogaa wufuuddu waxay la tagto shirarka dhowrka intii ugu muhiimsanada madaxweynuhu ka qayb galan ka wada qayb galay markaa xoogaal boona shirka arrintaas waxay ka soo fushiyey shirkii uu david cameron qabtay 2012 qodobadiisi waa weynaa labun baan anigu muhiimad siinayaa oo isu dhigmaayey koonfur waxay ka macaashtay in la yidhahda laga saaro kumeelgaarka transition government oo ha loo diyaar garoobo in dee ciidamo iyo amniga iyo laga xoojiyo dowladooda inagana waxa aynu ka dhaafin oo la yidhi soomaaliya iyo somaliland ka wada hadlaan mustaqbalkooda waana markii orsan shir caalami oo intaa leeg la soo jeediyo ha wada hadlaanoo mustaqbalkooda ha wada horta saasay ku timid waay hawshii haddaba inaga xaggeenna waxay ahayd inaynu xoog iyo caqli iyo midnimo ku galno in arrintaa ha wada hadlaanta aynu ka meel gaadhno waktigana ka ilaashano awooddeena garteena dee caalamiga aynu soo bandhigno shirka intii intaas kuntumay dowlad baa soo qayb galay haddaanan la soconna mid walba abawixiisiya waxaa la waday xogaal baan ka ah shirka haddaba su-aasha taagan imika waxa weeye haddii la lagu qabtay waxaa shirarka inuu badhigoodu london ahaado oo dowladdii fikradda keentay ee waxaanu aastay ahaatay ilaa imika si aanan anugu ogeyn baa waxaa loogu raray turkiga turkiguna xamar bula safeeyey boqolkiiba boos taa isagu taa dee u cadaystaybe maxsuul arrinteena mar qura lagama hadal war maxaa isugu nimid hodhaalba yaa la tagaa wakti baa waa lasoo roqay de waxa yaro aynu heshiina dadkaas dhex galo waxaan inaga inoo dalahayn laakiin shir baan ogaa oo ahaa kii saddexaad ama kii afraad oo uu siilaayi joogu hogaaminayey wuxuu kaxeeyey saddexda xisbiga guddoomiyaashooda cirroo markaa wadani ahaa iyo faysal iyo anigu waan joogo allah u naxariistay ninkaasi maalintaa garta somaliland ninkii ugu xogaansanaa ee ugu aftahamsanaa ee naqi lahaa uu naqay khudbadiisii xasan sheekhaa maanta loo taagnaayay waxaa joogay kuwii turkiga lagu qabtay weya istanbul baa lagu qabtay istanbulkii lagu qabtay waxaa joogay ordogan oo markaa ahaa ra-iisul wasaare iyo ninkii oglo malaha imika waa istanbul mara ka yahay oglo labadaasoo madaxweynaha iyo ahaayeen ra-isul wasaare ahaa dadka kale oglo khaariji waa oglo khaariji uu ahaa ra-isul wasaarena wuxuu ahaa ninkaa shir adag buu ahaa markuu gartii sheegtay ee yacni siday ahayd uu dhigay taariikhiyan waxa loo baahan yahay ayuu kacay xasan sheekh waa kaa maqlaaye kale uu maqli doonaa wuxuu yihi walaalkay axmed waa runtiisa waayo aragna wuu ahaa waxa uu sheegana waa runtii haddaba waxaan odhan lahaa
kala go'a walaal kala lushaa dhaantee arrintaa wixii lagu daweynayay wixii aynu ku heshiina kala tegaynu baa u daranay adaa maanta odayahoo kan ahee oo kana xulumahayo oo degankaasaa kacay wuxuu yidhi mar dee waxaas jiraan maanaan ogeyn iyagu waxay hayaan taariikh uun hore oo ina cabdulla xasan iyo harba etoobiya qabsatay iyo islaamka lagu soo duulay iyo halkan kamay dhaqaajin dhibaato dhacday dabeetana wuxuu yidhi aniga iyo xasan iyo idinka naga sii horeeya dhammaantay waxaanu tegaynaa hargeysa waxaanu bixinaynaa maxaan ku dhahdaa raaligelin wixii dhaca waa aqreenaynaa xasano dalka si loola sahabaynu gelaynaa laakiin maanta soomaali kala go'da bal ka fikira somaliland iyo midnimada tee faa'iido badan kolle erdogan markaa waa ordagan erdogan baa intaa odhanay waay ha markaa waxaan lahaa bal hadda yaanay dee iminka goyntu ina odhanta bal wixii xaggana ka yimaada ee wixii canigu sida hal eegayo dabeetana silaaniyo hadalkaa muku jaa wuxuu war shacabkaas maanta shacab xaggaa maqli karayana ma aha anoo maqli karaya wuxuu ku lahay noloshayda intaan noolaa iyo arrinta somaliland iyo soomaaliya waa isku taxantay markuu jaamacadda ka baxay markuu jaamacad tagay in marka xorriyadda ahayd wax badan u gala doctoraan buu dhigay adag haddii haseeshe wixii ka dambeysay shirarkii la tegayay shirarka intooda badanee dambe waxaa ka qayb galay laba wasiir khaarija isbedelay maxamed cabdilaahi malahaas afartii hore ka qayb galay ilaa 14 wixii sanadka laga bilaabo oo shiro 7 shirbaar ka dhaceen afar iyo 3 mar sanad walba istanbul inta maxamed bixiyo soo joogay runtii maxamed aad u daafacay qadiyada laakiin shirku wuxuu xirmay marka la soo qaado arrimaha culus mar walba waxaan ku noqonaa waxa uu jiray waxaan ku noqonaa waa tashi mixii ka soo baxay airportkii baa waxa la soo qaaday diyaaradaha laga soo wareejiyay halkaa markiiba waxay yidhaahdeen qoladeennii wufuudda tegi jirtay nimankii warqada aan shirkii hore qoraalkii aanu qoreen ku heshiinay bayna iyo daba fureenoo cabaar baa la joojiyay la murmayo toodii bay noqotay waa kuwa la tegey markaa shirarkaasi natiijo kamaynaan helin fursaddaasna sidii la rabay inooguma hirgelin ismarihi nin baa akrinaya soomaalida inay madax banaato laakiin dee aqoon la'aan iyo dhaqaala xumo iyo waaye aragnimo la'aan iyo dowlado waaweyn oo garabina siiyo oo maaragtay dee sidaa turkiga ay gacan galeen qoladan walooyintu maynaan ahayn laakiin alxamdulilah haddana waa laga soo gudbo mar walba waa la dhigay dee qadiyadda laakiin shirarkaasi intaa tiradaa leh iyo waqtiga ay lumiyeen maxsuulan si kabayna casharada laga bartay mooyaane eeg waxaad magaranaysaa dee meelahan badana aynu dee tegayno iyo waxaad moodaa caalamkana way inooga yara faraduuduuban yihin oo dee iyagu hadday ama aqoonsi ha isticmaaleen ama dee qaramada midoobay ama jaamacadda carabta ama dee meel walboo dee ay naga ashtakeeyaan iyagu markaa miyaanay u ekayn labada inay mar walbo aa wada hadlaysaan oo ama miiskaa fadhidaan ama shalay wada hadasheen ama wareeg kale loo diyaarsan yahay maxsuulka iska daa iyagu miyaanay mar walba caalamka ka iibinayn dee waynu heshiinaynaa dib u heshiisiin wada hadal abaa socdaa halka inagu aynu mar walba lahayn dee waa kala gurasho ereygaas wuxuu u baahnaa mar horeba in la gaaro war meeshaa shirkaas faa'iida inooma laha aakhirkiina wuu kusoo dhammaaday sidii oo masalan iminka qoladan dowladdan cusub ee cabdiraxmaan ciro hogaaminaya markay xaalka wixii akhriyeen soo hormaray ama ay tala qaateen waxay yidhahdeen waanu xidhno hadaladii golaha wasiirada baaskariyey baarlamaankuna I think April shirito wuxuu ku raacay resolution uu leeyahay hala joojiyo laakiin sharcigaasi muu meel marin may resolutionka codkii buu u baahan yahay codkii markii hala qaado shirgudoonkii baa ka soo horjeestay taasi imika halkay ka nooshahay waa in la dhaha war waay kuwa dira way baaskaraysa madaxweynuhu soo jeediyey shirgolona wuu ogolay xaggee codka loogu qaadi laayay halkay wax nagaga soo kordheen ee u baahan tahay wax rabay qodobka ilaa halkii nooluma talada laga qabtaay nin walba soo wada wuu ku daaray waxaad iga warantaa arrintaadkeeyo oo arrintaa la iska xidho markay taalo baahanta maanta in laga daba tago madaxweynaha cusub inuu ku dhiirado yidhahdo war dee raygaa soo jeeday maxaa loo joojinaya waxay u egtay marka quus baynu taaganay
oo dowladdan xukuumaddan imika joogtaana waxay u egtay inay casharadii hore dee ina soo maray inay wax ka qaadatay tiri war wadahadal dambe dooni mayno laakiin waxaan doonaya inaad bal waxaad ka fekertaa wadahadalladaa laftoodu dhaawac intee leeg bay gaadhsiiyeen madax banaanida amaba dee aqoonsiga oo dee dadku ay noo arkayeen dad aan dee serious ahayn oo ay soomaaliya dib u heshiisiin ka hadlayaan horta waxaan dacaadaha laysku tuurtuuro markay siyaasada dadka aan caadifada wataa markuu wax doonayo ninbaa markuu wax doonaya caadifadu ka xoog martaa qarankaba ama marba dad dhanoo communitiga caadifada qaadaado waa la jira haddee taa iska dhig anigu waxaan aaminsanahay somaliland boqolkiiba 90 inay aaminsan tahay somaliland inay xorriyadda la soo noqoto aniga waa fikirkayga sabab badanna haddii la sheego doodo waan ku binayn karaa in yar baan ku sheegaya siyaasiyiintii midnimada ku dagaalamaysay markii shirkii burco la guddoonayey lagu celiyay halkeedii hore iyo shirarkii ka dambeeyeba siyaasiyiin badanoo waaweyn oo hebel la-abaa yaa ka soo horjeedsaday badankoodina xamar bay uga tegeen mid waliba markii waktigiisii ay timid da'da iyo xanuunka iyo dee nin weyne waa geeri u joogay geeridii kusoo dhawaaday hargeysa cod tusoo daba hargeysa gudaasi maxay ku tusaysaa qofka somaliland darkii inuu hoygiso somaliland lama huraan waa caws jilaal marka u malayn maayo inay qofna waa inay la gasha cadfada mooyaane weliba raggaan in badan baan ka waraysta markay soo noqdeen nin waliba uu ka murugaysnaa waaye si cadfada wax loo galay halkana cadfad baa lagu gooya war laguma goyni taa intaasa ku dhaafaya waxay ila tahay somaliland laakiin waxay naga xun aqoontii dhaqaalihii tamartii dadkuna markay fuqarana yihiin aanay dee waxaan ay garanayaan aad fahamsaneen sidaa doonaysa heli maysid marka waynu dadaalkeenu ma yara imikana meel wacan baynu taaganahay oynu kor u kacnay magaceena adduunka marahayo intaynaan soomaaliya ka gudbin oo kolley way kusoo noqnoqonaysaa dee ilan waa dadka dee nagu maranaya dhacdaa jirta mar ma garanaysaa intii xukuumaddaadu jirtay dhacday oo ninka ra-iisul wasaaraha ethiopia prime minister abiy axmed la yidhi wuxuu doonayaa inuu farmaajo hargeysa keeno talada waad badisay oo dee duulduul buu dee nagu soo gaadhay oo dee dhowr qof cabdilqaadir jirdaa ka hadlay markaa talada waad badiso dad badan baad isugu yeedhay oo xitaa uu ku jiro madaxweynaha maanta joogaa bal arrintaasi siday idinla ekayd farmaajo la walwaalayo ayaa diyaarad laga soo dejinayaa bal arrintaa nooga waran oo taas waqti haddaan ku yarakado horta waxay ahayd arrin ku dhacday si kadis ah shirkii afrikaa meesha lagu hayay waxaanu helnay oo aad u yaqaanay afrikaankii waxooda aad u dadaalayay ninka la yidhaahdo maxamed biixi yunis iyo nin kaloo cabdiraxmaan la yidhahdo aan maranaya inuu kenya wax ku bartay isna malaha safirba kasoo noqdo aad iyo aadna rag dhowrahoo arrimaha afrika yaqaana oo badan baa isoo ursaday ay labadaas horumarkeen marka waxaa la dhiiriyey war kaalay rag adaga soo kaxayso waxaanu samaynaynaa wax la yidhahdo loben marka wax xoog la saaray ninka la yidhaahdo ninkan haysta south africa kolkaa inaan ku dhalkuro meelo badan iska yimid oo dukumenti wacan baa la diyaariyo aad baa loo daalastay aad iyo aad waaya meel yaroo waxaan galo caadiya waanu sanqar tirannay maanaan tegin oo oyudaya meesheedii habeenkii aanu la ballannay wuxuu nala ballamay toddobada meesha fadhiisan saddex baanu ahay baan oonaya maxamed bixiiso isagaas yaqaaneen odayga faratoona khaarijiga ahaa ee aniga marka dee waanu farxaansanna hodhalkiina waa la buuxaa marka sawirtaa la isgeliyey meeshii markaanu fadhiisan shirarkan afrikaanka waa kuwa buuqa badan leh kolba barnaamijka waxbaa jebiya
waxba aan lagu soo dulcay dowladda hoose isku dayarataan imikana dowladana gelaysa imikana dowladana gelaysa imikana dowladana gelaysa 11 oo colweynahan hadalkii aan ku jiro ayaa odayga soo baxay sharajoog nuur hadda wuxuu yidhi hadda waan iga baxay beritan hawl badan baa taala imikana waxaan tegayaa qolooyin isku yar booqsamaan ugu noqonaya xafiis marka haddii aan lahaa safarka banaan ka baxo waxaan kuma lamaynaa dalkayga marka waxaa soo gashay oo u yeedhashow qalindaaray Ethiopia waxaa cabatay malaha Soomaalida oo tidhi dee ninkii shirkaba gudoomin lahaa wuxuu doonayaa inuu Soomaaliya qayb ka mid ah la shiro banaan kula shiro marka xogeyntii waxay cid baa u tiri Ethiopiana yidhi arrintaan inoo haki soo bax ra'iisul wasaaraha Ethiopia wax balana ma yeelan isagana uma soconin isla nooba yeelino waxa ku mashquulsanaa meesha la yiraahdo shirka Afrika dee dul saaraa marka hore ka tagi ayaa nin la soo diray arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa la Brit Koytonka wax ku doonay ra'iisul wasaaraha muftiga misaanka adiga waan suuday waryaarahe xagee wax ka qalacay khayr waxa uu talo maxaa loo wadaa waayeen wada aniga farto basnaan kharajka xafiiska madaxweynaha tagnay markii loo yeeray waxa kharaj show xaajigan abiye xagga kalena wuxuu uga yeeray farmaajo wuxuu soo kaxay kharajkiisa markaan xafiisku dee meel badan fadhiyo meel kala soo iyo fadhiya labadii kharajyo uu reebo wuxuu labadii nin kala xafiis rabaan ugu tar lecture buu noo akhriya wuu waa in heshiisa waa maxay kadiskan iyo wuu nagu adkeeyo farmaajo anigu heshiis baan diyaar rasuuli adood golaan hadduu ogaaday mar farmaajo oo ninkii waxayay wax walba waan ogolahay buuri haye sidii lagu heshiiyey oo waxa meesha ka dhacay iyo waxa isagu dan kaba la heshiiyay maya dee ilayn arrintu dee isaga laftiisa kadis xaggan waxaanu kolkaa anagu ku kaakulood galayna waxay war ballantii Ramaphosa aanu ka sugaynay ayaa la arkan kicisay markaas wuxuu leeyahay dee innaga isku xigna jaar baynu nahay wax walba waan dhawaynaynaa wanaagana dee afkii diroosid ku hadlaya waxaan ugu dhiibaya deetana isaga farmaajo waa saaxiib waa markii Eritrea iyagii iswateen waa kii wax walbana dee siiyey dekedaha waddanka oo dhan marka anna waxaan ahay dee nin iminka iyaga ku cusub markuu nagu adkeeyaan ku yidhi aan mid kuu sheego aniga xisbi iyo baarlamaan baa ay doortay oo cod baa lagu doortay fariintaas baa laga dhiibay kala go'a midaan lagalama hadal ilaa aan iyagii ku noqdo iyagii iyo dalkii aan tagana deetana waxa la waay markaasuu yidhi okay te isagii waxa markaa anagu hadana waxa la yidhi waxa baxaya madaxweyne Nigeria markaasuu leeyahay dedejiyay madaxweynaha protocol ku sii dhow yalla saada waaba ma fadhina salka ka fadhino deetana waxaan ku war imika halkan anagu arrintaas waa arrin culus tistoorkay ku qoran tahay lama faragelin karo walaa madaxweyne walaa wasiir halka soo tusto in la wada aduu tiibu naga aqbalo wuxuu waayahay maanta waa la kala baxaya kana laftiisu u bixi lahaa sida uu sheegay yardii garoonkiisu habeennimadii diyaar baha dalka tu baxa dadka waa yeeray waxa waayahay aan kala baxno degdeg soo jawaaba marka waa nimado dee hay-adihii ay ku khusaysa caalamka waxa ku sheekadaas marka farmaajo wuxuu yidhi markii uu lahaa waa in Soomaalida wixii gaaray loo garowsadaa farmaajo wuxuu anu markaa tago waxaan akhriyaa khudbada ku garowsanayo wixii dhacay waanu akhriyay kasuu fududeeyey waa akhriyay ha farmaajo laakiin wuu fududeeyey sida uu fududeyn karaayo dee ilaa xaggana barashar ma ka haystee iska yara afgobaadsi bay ahayd waayo maya wuu yidhi inaan ciidanaha odhan buu yidhi laakiin dee culays kala haysta
ila isagaba dad baa kasoo jeeda adduunyan ku daalay taasaa keentay inaan dee dadkii o dhan idhaho wareera maxay la tiri deetna abiyoo kii ku adkaystay heli war adigu farmaajaha soo kaxayn farmaajahan la hadlo ku war ma adiga soomaaligu ninkan kusoo qaadaya oo keenaya caqli ba ina wadada isfureen oo cid isku keenaysa isla uu garto wuxuu wallahi dee ninku isaga aad u xurriixaya inuu hado dee waatii muranka badan ka dhacay way marka taasi hawl badan bay ahayd aad u isku heshiinay ninkii abiya markii dambe hadana markii dhaqaaq weydaan ku war shacabka dee haya wax xukumay aniga saadan ma yihiin awood badan igu kaadi weliba taa lafteedana halkaa idinkaa markaa wada sheekaysigeennan aabi dhowr jeer buu kusoo noqonaya laakiin waxaan doonayaa inaan meel kale aynu yaro qabanno habo keenaya arrin kaloo waxaa jirtay iyaduna dhacday intii muddaxeleedkaagii oo ahayd xidhiirkii diblomaasiyadeed ee Taiwan iyo Soomaaliya xidhiirkaasoo niyow dadka badankoodu may filayn waddan fog oo aan la aqoonsanayn oo dee dadku ma garanaysaa dee Taiwan way dee feker way ka haystaan laakiin ahamiyad ahaan oo mararka qaar dadku markay ka faalloonayaan aad maqli jirtay mararka qaar niyo waa dee muxuu ahaaye laba qaawani isma qaado xitaa maqlay anigu marka laga hadlayo iyadana lama aqoonsano innaga laynama aqoonsano dhinacna dee waxaa jira in dee qoladan dee China ay dee kulaalayso oo dee waddan dee ay leedahay annagaa dee iska leh markii haddaba aad ka munaaqashoonayseen idinku tiim ahaan in Taiwan xidhiirka noocaasa aad la samaysaan ma jireen dad ma garanaysaa xogaa ka dardaar wariyo yidhi war amay China ina cullaysiisaa hawshaas horta sida ahayd markaan soo koobo arrintaa inaanu Taiwan la xidhiidhno waxa keenay halkan xafiiska nimkaan fadhiya waxaa igu yimid safiirka China ee Muqdisho jooga berigaas safarada aad ugu iman jiray markuu yimid wuxuu yidhi soo degay waxaan u ahaa nin beri aad iyo aad maaragtay waxaan afgariiska loo arrogant aan Somaliland arkayn indhaha ku haynin oo aad mala wax loogu soo akhriyay dabeetana wuxuu waxaan kugu imid salaan isbarasha Somaliland laakiin mid haygala hadlay waanu goosanaynaa oo politically inaanu dal gaara noqono doonanaa siyaasaddu ma aaminsan annaga haddaan noo sheegna raalliga ah ma ka hor intaydan xitaa xidhiirka Taiwan aanu jirin maba jirin xiriir baa dhegeyso Taiwan baa manaa noqone way isagaana baray annaga halkan annaga China dagaalkii adduunka dal annaga qayb ka mid ah xoro qola ay kolkolisay buu halkan Taiwan ay mara maqashay raasana ku dhigay history-gan ku dhigay Formosa la oran jiray ninkii waxaan ku orday hadalba inoo bilaabi maayo oo adigu waxa tahay safiirkii China magaciisu ay qoraan oo sheegay ana waxaan madaxweyne Soomaaliland magacaas leh hadda tiraa adigana ma aqaan Soomaaliland ma aqaan dee anna adigana kuma aqaan aroortii markaan qof حتى dadka qoladan galbeedku markaad wax qotaan hadal macaan iyo waxa gari kaaga soo wareegayaan waqti isagu markiiba tunta wuxuu kaaga bilaabay muxuu ahaa arrintan ay kala hadlay halka waxaan u yimid anoo aqoonsan inay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya halkaasaan ku qartay marka hanjabaadu idinkoon xiriir kala samayn bay idin bilaabnayba war ma nagaa cid mana jeen dowlad weyn oo waxa uu ku kamaleeshooda inoo kaalay oo waxba hana taraafada barnaamij galiyo oo halka ayaa ka filayay dee waana dal waa war waan ma soo waxay shirkadda meel ka sawaynay dowladdu ka raali tahay beetara maxaa inoo danaho muddaan iska joogay warkaygii baxay inaan iskhilaafsanahay dhowr jeer soo noqonnay uu yimid aan iskula fahmoyna war haddii aanad igala hadlaynin qadiyadda dastuurkaasi wixii mudkaasi may wamrudi hadda iska daawa kale waxa cuntaan ku siinaya kuma aqaan ma aha waxaas wadada ma ku dhisay hadda maxaad ilisay ima taqaanidi way Soomaaliya leed waad ka dhisaysaa halka wadada aad joogtay ee taadu halkaas ka bilaabantay markaa Taiwan baan helay farato markaan joogay iyo nin yar oo la Liibaan oo ku xigeen ahaa way dadaaleen Taiwan
waxa quraan ku heshiiyey laba isku qadiyad baan waxaan ku yiri anagu dee dal xorriyadda soo qaadanana idinka tiinu waa tugaar wadinka reer galbeedka aad iyo aad isku dhun dalooda siyaasadda dibadaha dowladaha waaweyn aad taqaaniin naga caawiya codkay gaarsiiye tiknolojiyaduna ku horumarteenna dadka arday badan oo qaadano bara labada qodob oo naga yeelay aad ugu shaqeeyay xiriirku markii haddaba uu dee soo markuu soo baxay iikaadee markii Taiwan baanu keenay aad baanu loo qaaday dadku aad iyo aad uga wacdooday ciddii aanu soo gaarno markaa ururta tiraa war dee saasaana qabsatee miyaanu storka miyaanu burburinaadee miyaanu ka wareegno islaamaha waxay dhahdaan doorka iyo maamaaba jirada ku tiraa waad baahan tahay looma bahla cuno waryaale waar nin diidan qarnimadaada ay adigu tii dhacday Taiwan baanu soo galay markii ay maqleen baa jeerin waxay soo direen iminka darajadiisi ma aqaaneen wasaaradda khaarijiga meel sare qolo focac la yidhaaho weeyaan qolada arrimaha dibadda ma aqaan dukuri hadee alladii waxaan gooyay waxaa gaaraysa madaxweynaha wuxuu Taiwan jooji waxaa fiskanaad furaysa doontaa jooji koo waxaa doonaysaa sheego 6 nin baa la socda anna waftigii waa hadheen waxaan doonayaa inaad naga caawisaa horta inaad na dhegaysataan ood noo garnaqdaan annaga iyo muqdisho inaad jeceshiin oo inaan dul xor ahaa kasoo noqonayaan ognahay intii baan yaanu isla waqray way ku dhici waayeen in arrintaa nala soo qaada halkii hor bay istaagtay maya taa iska daaya waxu aynu sida kale u saaxiibno weliba xafiiskan Taiwanna ka noqda waxaan ku iri horta nin aan dee naba ogolayn see wax noo dhex maraya wuxuu yiri dowladahan cimaaraadka waxay idin shaqeeyeen haddana la ictiraafsanaa hanama ictiraafsanaa laakiin sidayna ugu ixtiraama nama ilaahan xamar ka soo qaata laysan iyo xamar baan ku diranay ma aqbalade معاونتي كون maxay ahayd European Union kii aanu haysta hadaa soo maraysan xamar marka arintaas idee halkaas aan meel buu istaagay halkii baan istaagay tahay China waa dawlad xoog weyn waynu u baahanahay laakiin danteeni baa iska hortimid marka laakiin dhafoor taabashay ka bilaabantay hawshan ya kuma aqaanay maqal dee waa arrin adag waa ninkaas asxaan weyn buu inoo falay haddaba intaynu Taiwan ku jirnay iyo arrinta China horta inkastoo markaa horta dadku si aad iyo aad u diiday iminka wadani Abdiraxmaan iyo xisbigiisu dhambele ka duuliyay dad badan waxay islahaayeen de horta may ogeyn sidan dee ma garanaysaa dee China intay timi ay dee idinku galgalatay Taiwan oo dee meesha joogta dee halkaa dee ay wax isku beegbeegmeen waa runtaa madaxweynuhu markii muxuu ahaay ololuhu socday waxyaabaha xukuumaddaada aada ugu dhaliileen bay ka mid ahayd imikana waxay u egtay inay aada u sii amba qaadeen dee xiriirkiisiiba kordhiyeen oo waatan imika dee coast guardka heshiiska lala saxeexday ma xog cusub bay heleen saa aad sheegayso oo idinkaa dee wax ku kala wareegay iyo dee inay arkaan dee dadku dee Taiwan iyo malaa keligeed maahee waa hombore libaax bay soo wadaa bal maxaa bedelay mowqifkooda marka waxa bedelay xog ogaal baan ahayn ninkan dibadda markuu joogo ee dowladda la maagayo culayska ninkan madaxweynaha haysta kuma oga madaxweynuhu dee intuu suuqa yimaado madaxweynaha ka hadli maayo dadkan cagta ku dhigi maayo waana kula marka la caadibaysay ama kursi la doonayo ama shaqo la doonayo dadku waxbay dee nin baan shaqo doonay imtixaan ku gudbi waayo wuu caaya wiga ahda jaabiga soo hor khamo ah marka waxay dadka xogaan bahaysay markuu ninkii meeshii yimaado oo dhibaatooyinka arko dee dambu halkii ugu roon u keenay marka xogaan bahaysay waxaan eegayeen inay yiraahdaan dawladdan dee waa dawladda wax garanay China biliyana oo adduunka adag bay sii disay Taiwan bay noogu yeedhay wayna jabinaysaa dee way China hadduu ku weli ilaahay waa ilaahay ku keenay soo qabo marka ikhtiyaar horta marka horeba meesha muu jirin waayo dadku inta badan waxay u dhigaan waxay yidhaahaan xukuumaddii madaxweyne muuse bixi waxay kala dooratay China iyo Taiwan waa dhab
marka ikhtiyaar markaa meesha dee iyagu ikhtiyaar bay namay siin hadday ku leeyihiin may siin dee ayla soo qaadin waxaa tin imay siin iminkana halkiiba ka taagayin iminkana halkiiba ka taagayin hawl waddankeena ka dhacday oo aad u culusayd oo aanan doonayn inaynu soo haayay waayo arrimaha dibadday ku kooban tahay laakiin waddankan chinesku beri dhoweyd oo uu qabtay hearing senator ted cruz oo aynu goordhow ka hadli doono waxyaabuhu soo qaaday culaysyada ay somaliland ay ku hayso china oon ahayn beri dhoweyd inay hawada oo kale magaranaysa hadday taiwaniiska ka xayireen baasaboorada soomaaliya laascaanood iyo maaragtay meeshaas sool inay chinesku dee ay halkaa ka wadaan dee qalalaase amaba ay dee siinayaan hadduu badankeedu leeyahay taageero ama siyaasadeed ama military bilowgii shaqaaqooyinka halkaa ka dhacay oo dadku inta badan dee ay organic ku arkayeen kacdoon dee dadweyne oo dee magaranaysa intee in leeg baad isleedahay china hawshaa way ku lug lahay horta xog badan oo aan dhahda 1 2 3 ma hayo laakiin media waxaan ka arko dee madax nimanka jooga canood xarunka tagaaba jaamuhu soo dhaweeyaa waan la shiraa dadka iyo miduna aad bay isugu xidhaan inuu kacdoonkan ka qayb yahay laakiin dee anu fact imika aan dhaha tahay taa laakiin waxaan ogoon inay siyaasiyiin aad soo ogol yihiin fair enough waxaan waynu ka gudbaynaa waxaan doonayaa waa isla soo maadarag wada hadalladiina maaha haddana somehow isla mandiqada jabuuti oo ma garanaysaa waddan adigu aad ahayd madaxweyneyaashii xidhiidhka ugu dhow lahaa iyo weliba dee madaxweyne ismaaciil cumar geele berigii dhoweyd ee mou ma garanaysaa somaliland iyo ethiopia ay kala saxeexdeen heshiiska is-afgaradkaasi wuxuu yimi waxaad 29kii disembar baad joogteen jabuuti oo ismaaciil idin dhexdhexaadinay bisha kowdeediina adiis baa lagaga dhawaaqay mougii halkaa waxa ku jira in ma garanaysaa dee ku talagal ay ahayd oo idinku aad malaa dee marka horeba idinkoon waxba ka filayn haddana aad shirkaa jabuuti ka qayb gasheen halkaa in yar baa ka maqan oo dadku aanay fahamsanayn oon jecelay bal inaad aad noo xidhiidhiso wada hadallada dee qaanac baynu ka taagnayn waxba dee kamay soo baxay haddana waa idinka halkan kale ka hilaacay bal hawshaa noo yara faahfaahi dadkaas hawshaasi way kooban tahay shirka jabuuti markii aan tegayey iyo markii aan joogay waanu sheegay inaan january firskeda la ballansanahay abiye washirale way ogaayeen ba qolada beesha ugu joogtaa way Soomaaliya iyo Jabuuti waanu sheegay shirkaygana waxaan ku adkaystay in la hore ugu dhameeyo aan maanta la dhaafay saasaa loo soo koobay tira waan tegey oo weliba arrintii waan kala marka iyadoo way ogaan inaan tagayo shir aan leenahay dee malaha cidna ay odhanaysa maxaad jintaan ugu sheegi weyday taas dee malaha mid macquula dadku isma quuraan baamushirku isma quuro dad kale waa jabuuti hawshaa laakiin meel adag barikaada arrintii waanu galnay inay arrin aad iyo aad u adag tahayna waan ogaa laakiin waxay noqotay inuu isagiina diyaar ahaa annaan diyaar ahaa waanu ku heshiin labadeeda inuu culas baan kubanaya waanu garayna jabuuti aad bay ugu xanaaqday weliba madaxweynu anigu ilaa maantadan ma garanayo waxaan jabuuti siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo heraftooda midna u dhimay oonu u geysanay ma garanayo caradaasi halkay ka timid waqtida waa la ogaan doona waqtigaa keeni doona laakiin anu ma hayo miyaan laakiin la odhan karayn dee somaliland la aqoonsan yahay oo imika hal dekadoo keliya aynu leenahay hoteena berbera ah warbixin baa jirtay beri dhexdii ahayd uu soo saaray baanka adduunka oo aad moodeyso dee dekada berberi inay dee ku hayso adeegada dee loolan dhaqaalo aada u weyn oo dee jabuuti dee aanay ahayn dee makhaayadda keliya dee ka shidan dee mandiqada miyaan la odhan karin markaa jabuuti waxay warwar ka qabtaa in dee ma garanaysaa uu dee culays dhaqaale ku yimaado dee somaliland wixii dee isticmaalayay bar halkaa maraan
haddii aan kuu sheego xaqiiqada ka jirtaa Jabuuti, haddii ay Etoobiya Jabuuti waxay doonto berbera ka qaadato werar kuma hayso laba sababood labadaba. Horta Jabuuti waxay ka horeysaa in badan badan oo in 20 sano gaaraynin meesha berbera hadii dhaqaale lahayn kabaastiga dowladda siday u qaadaan siday u dejiyaan shidaalka hamaha u dhisan waa aad iyo aad bayna waran wuxuu weyn tu kale ka ururbayaanoo Etoobiya waa 100 bilyan oo sii kordhayo oo Jabuuti iminka markabka yimaada iyo Etoobiya waxay ku qabtaa dhibaato badan markaba bil baa la sugayaa gaari wareer taagnaanaya oo kala rari kar lahayd oo kun baabuur maalintii 200 baabuur baa ka baxa tiro ku dhow markaa laba wareer oo dhaqaale oo berberig waxa u tarto oo ka fududeysa hawsha taale mooyaane dhaqaale burburka ka imanaya iyo berbered Jabuuti ku gaarsa technology iyo hawsha taala ma aha boortka taayada dee Soomaaliland colaad u qabtay Jabuuti oo waddanka isku dheynoo dee siyaalo badan waa isku mid bal markaa waa arrimo u baahan taariikh aan imka aanu garanayn waay maxay u dhacaya ma sheegi karo idinku adiga iyo weliba inta dee karaankaaga ah dee faragel jira dee hoos baa loo dhaqaaye inta karaankaaga ah adiga iyo dee Ismaaciil Cumar Geelle dee laba qof oo aad isu yaqaan muxuu ahaaye dad badanna inta badan ay odhan jireen weliba Jabuuti Somaliland waxay doonaysaa inay ku hayso hana dhiman hana noolaan adeegad halkaagaa iska joog bal haddaad dee nin weyn baad soo xoggaal ah kolley meel baad saaraysaa warwarkan ay ka qabto Jabuuti ma Jabuuti oo keliya oo dee dhanbaa oo macnaha shacab ahaan iyo dad ahaan mise dee waa arrin baad isleedahay dee madaxweynahooda ku qoon kol haddaan ku odhan wax walba factskaan hayaa qof waliba waxba u malayn karaa qof waliba mala guud war dee dadka hamasaadka suuq jireed oran jiray abaasha alharaam ayaa qori jirtay marka inta badan waxay dhahdaan hamasaad waxay suuq ku sheekaysaa run buu noqdaa anu wax imika arrimaha aan ku tilmaamo dhahdo waxay xasii Jabuuti halkaa way carootay ilaa imkaan garan lahay war maxaa loo dhigo berbere deenta berbere maba gaari karto maba soo qaban karta halkay maraysa ee maxay ka rabtaa marka waqtigaa sheegi doona taa waqtiga dhaafayna fair enough laakiin inaynu muxuu ahaa MOU-gaasi dee ilaa maanta horta muu fulin marka waa takaleen doonaya inaynu uga gudubno waxa weeyaan waddankaas Soomaaliya ee maaragtay cabashadii iyo siday isu lahaayeen hawshaa joojiya dee waxay u egtay inay ku dambeeyeen inay noqdeen maxmiyadday Turkigu leeyahay khayraadkoodii badda kii dhulka shidaalkoodii ay masaray kaalaya inay Soomaaliya ay noqotay koosarad xabaal taala heshiiskaasi dee faa'iidadii Somaliland ugu lahaa oo ahayd inuu dee warkeedii adduunka oo dhan cirif walba ka dhacay laakiin waxay aniga ila eg tahay dhaawaca ugu weyn ee uu Soomaaliya u geystay inaanay 200 sano soo socda ka soo kabanayn adigu arrintaas aad u aragtaa horta Soomaaliya dee anu waxba ka oran maayo ninkaas uu ku caayiyo col baan nahay waa abiisay iyaga waxooda ma jeclaan daan iyaga toos ula hadlaynin dhexgeli maayo socodkeena heshiiska waxa ka hor yimid ururka Afrika iyo ka Carabta oo ilaa dowladaha haweeneyda sida Mareykanka oo kale iyo u qeyshaday waayo majority-goodii Soomaaliya ee markay cabatay way dhageysteen wixii Carabta ku jira oo dhan baa horta raacay carab sheeganayay dabeetana Afrikadii kalena waa laga howlgalay oo Masar xoogaa meesha hogaaminaysa oo Ethiopia codkii Afrika hor joogsay cid kale uma joojiseen in xarunta laga raraa soo barbaskarinaya haddii arrintaas ay socotiso ay maqli weydo haddii sina xarunta laga raro iyo barbarogtay qaarkood marka Ethiopia arrintaa waa laga adkaaday innaga xaggeena uu ka fulayay Afrika ka adkaatay iyo qayladii Soomaalida iyo Carabta ururkan Carabta intuu Carabtii aamin waayay uu Islaamka u yeeray markaas saddex conference baa isku raacay Afrika Arab League iyo Islamic Organization oo kuntan dowladda saddexaas hor joogtay Ethiopia waxaad tidhi innaga xaggeena oo inagu dee wixii aynu dee
aynu ku bedelanaynay heshiiska wixii aynu ku gelaynay dee gacanteennu ku jira dee diyaarna waynu ahayn oo waxay u ekayd dee dadku aduu aad baa looga falceliyey laakiin inta badan in aqoonsi iyo dee arrimihii la shaaciyey la isweydaarsado waxaa tiri laakiin dhinaca etoobiyaanu ka fulin ha taasina markaa ma filan waamun bay ka ahayd mise way yare ina ishaafalataynayeen oo xitaa aqoonsigeenna diyaaruma ahayn etoobiya maya anagu saan ku heshiinay labadoo diyaar baanu nahay laakiin muu fulayn in afrika iyo carabta iyo intaasoo gurmada isugu imanayaan culays badan baa la sarro balash badanoo siyaasaa ku dhacay Fair enough. muxuu ahaayey waxaan doonaya haddaba waynu soo yara dhawaana imika halkan ay marayso muxuu ahaayey arrinta somaliland ee weliba maraykan beri dhoweyd baad halkan aad noogu timi waxaad aragteen senators fara badan waxaad la kulantay dad badan oo xukuumaddan ka tirsan maantana waxaad moodaa intii hore oo berigii hore senator rush oo ah maaragtay senate foreign relations committee waxaa ku soo biiray ninkan cusub ee ted cruz oo soo bedelay halkii kursigii wasiirka arrimaha dibadda ee marco rubio halkaasuu joogaa oo isla guddigaas ah maalin dhoweyd waad la socotaa waraaq uu u qoray madaxweynaha trump oo uu leeyahay somaliland ha la aqoonso haddaba intii aad joogtay waxaad jirtay in marar badan mar ay noo yimaadeen ninkii haystay africam ee general townsend in qoladan maaragtay ciidamadooda africam ay aad u yimaadeen oo berbera ay dhowr jeer tegeen dee dadka inta maaragtay dee dibadda wax ka soo eegeysay aan xoogaalkahay waxay u eg tahay dee howlahan soo socday oo markuu ted cruz uu waraaqda madaxweynaha u qoray dee wuxuu yidhi somaliland ahamiyad weyn bay u leedahay ma garanaysaa national security interest of the united states amaba iyo istaraatiijiyaddii ay mandiqada ka leeyihiin taasuu sababta ugu weyn ka dhigta intee in leeg ayay ma garanaysaa aynu isla gaadhnay maraykan adigu muddaxileedkaagii wixii aad ka hadli karto oo dee hawshani waxaan leeyahay wax cusub uma eg oo halkaa faahfaahin naga sii dee maraykanka horta waxa la qariyo oo adduunka imika la kaydaa ma jiree babligii maadaama dee dadkii warku noolaya waa inaad babliga gaarsaa waxa wada haddii kale shaydaan kala warramaya marka maraykan waxaanu isla gaarnay inay aad iyo aad u danaynayeen somaliland ay uguna u weyn tahay maadaama shaynuhu xoog noqday oo isreynayaan dee si cold warki haddii jabuuti uu la wadaagay inay berbere degaan taana somaliland haddaynu waanu ka iibinayna markii hore aan meesha u yimid su-aal baa taallay imikana weli taalla beriga hore iyagoo yidhi waxaanu saldhigga noo siiyey oo waxaanu doonayna military waxaanu la bilownay ciidamadii noo yimid iyo safaaradoodaba war nooceebu noqonayaa saldhigga meesha imanaya saldhigyadu ujeedooyin badan bay kala leeyihin mid waa mid dagaal mid waa mid taakulaynayd mid waa mid serpelanis wax badan baa macnayaal badan bay leeyihin mid walbana waxa ka abuurma dantaada xeer dee adiga waxa ka iman doona kaa nabadgeliya saldhig ma tahay dee ma soconayso maantana tii way taallaa way soconaysa waa dalka la ilaaliyaa waynu u baahannahay isna waynoo baahan yahay waa la baargangarayaa ta ugu dhow waa maxay hadduu ciidan dagaal yimaado ama maraykan ba imika dee cidda ayaan waxa ugu kulul dee carabta odayaar hegesa waxa ka dhacay xoutiyiintan waa ninkan jaarka ah markaad maraykan adigu la heshiinayso ogow xoutiyiintii oo dalkaaga oo dhan gataar soo gaarsin karaana dee waad culubaysaa dee aanad xal u helin marka waa in dee su-aalaha dhabtagaala la eega oo haddaad ii baahan tahay ana xulayska soo fuulaya waa kan marka horta dee waana securityga iga suga securityga anaa ilaalinaya dee ma su-aal baa ka imanaysa oo ariga maxaad ciidan igu dhisi waayeysa marka aqoonsi buuxa maya aqoonsiga hadda xataa hadda aqoonsigood waada waxa imanaya dee saldhigu dee waa arrin adag colaad baad gelaysa marka waxa weeye beriga hore markaan doodaa la galay waxay dhahaa dib inoogu dhiga
oo markaa dee gasana may jirin jaaruna sana muxuu weyn way 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 ka jiibsaday commercial baa ka dhigay aan ku heshiin haddana waxaana soo kacay iyagaa u baahday dee kolkaa waxaanu anagu soo joogay keliya waayahay aad timaadaan waanu ogolahay haddana waxaan leeyahay waynu ogolahay inuu ogolaano mar haddee shiina dee aynu isla marlaan wili taiwan baad u hadashay waxay la tahay inaynu la hadalno oo aynu laakiin danteena aanaan usduufin dee oo arrin u baahan heshiiskaa saldhigga lagu gelayaa dad badan oo aqoon waxa u leh in laga wada hadlo oo securitygeena mustaqbalkeena ciidamada joogaya suu joogaya malaha dhowr iyo dee boqolaal iyo dheeraad buu ku leeyahay maraykanku adduunka mid walba xeer gaar u leeyahay iyadoo ay ku xiran tahay nooca ciidanka joogaya iyo miisaanka u leeyahay markaan waan soo dhaweynaya hadday imanayaan waxaana leeyahay hala soo dhaweeyo ictiraafkana ha laga doono haddaad maraykan ictiraaf ka hesho adduunyada inteed bilood ka helaysa waa xoog waa halkii u sarreysay taasa haddaba dadku labadaba inta anigu badan waxaan oran lahaa waar inta aqoonyaha qurba joog guda joog caqli leh ku yaqaano waxyaalaha la isugu tago oo jaaniskaa maanta aynu ka faa'iideyno taasa ku talnay marar badan waxaan maqlaa marka dadku ay ka hadlayaan aqoonsiga Somaliland dhowr arrimood ayaa aad loo soo qaada horta midi iminka markii Ethiopia laga wada hadlayay magaranaysaa dee arrintii is-afgaradka oo aqoonsi in lagu bedesho dee howlo kale dadka badankoodu berigaa waxay lahaayeen Ethiopia waa hal wadan eegada Kosovo waxaa aqoonsan intaasoo wadan maalin dhaweyd waxaan maqlayay isla tii oo kale oo la leeyahay maraykan oo keliya hadduu ina aqoonsado maxay taraysaa marka gorgortankaa aad leedahay ha lala galo oo magaraysa gartayna aynu akhrisanno miyaanay muhiim ahayn maraykanka in la yidhaahdo dee aadna aqoonsatidee maxaa yaa kaleed wadaa xulifo ah waliba midaan kugu daro maalin dhaweyd baan waraystay safiirkii hore ee Soomaaliya u fidiyey maraykanka Larry Andrew wuxuu yidhi 2006 intaan weliba isagoo safiir ahayn dee dowladda maraykanka iyo ingiriisku labaduba waxay diyaar u ahaayeen inay aqoonsadaan Somaliland laakiin waxay raadinayeen hal wadan oo afrikaan inuu ka hordo marka maraykanka markaynu la gorgortamayno inaynu leenahay dee aad naba aqoonsatid oo dee adiguna danahaaga aad kushisid ma odhanaynaa yaa kaleed wada iyo weliba wadamadan jaarka horta markaad halkaa isla gaadhaan dee qof waliba ra'yigiisa soo jeedin doona laakiin maraykanku hadduu ku aqoonsanayo cidna uma baahna waa super powerka adduunka halku doonaa wax dhig hadduu ictiraafana dee waa tareenkii adduunka u weynaa anigu waxaan qabaa inay inta isaga la socoto ee uu dee isagu hayo ee dowladaha caalamka ahi markuu dhawaaqo inay intooba musaacado ay ku wada dhawaaqayaan tusaalan ku siinaya israa'iil markii ay ku dhawaaqeen dowladnimada 2 minutes ama 3 minutes ka bacdu maraykanku aqoonsaday 1 hour gudaheeda yurub dhan baa aqoonsatay marka waxaa iyaga awoodii ba lahaanayn hadduu awooddiisii maanta China eryayo oo barba ka qaaday istir haddana maanta waa tooraha wadanka adduunka ugu xoog weyn marka waa chance ma leeyahay arrinta aynu ka wadaalino laakiin waxaan u baahanahay dee waxayna saaran ila dowladoodu helo raaseen xamar geyno oo dhowaanaan garayn waxaan loo galaba marka waxay maraykan inuu tagayna maraykan dantiisu eeganaya ku daran maayo adeeg kuna tuuri maayo kulba inta kala gusta adduunyadu waa saas waxaan dantooda aqoon dadkeena waa intaad taqaana intaad goosan karayso intaad saay karayso halkaad ka tagay intaas weyn in xoog saar u baahna waxaan doonayaa waqtigeennii adigu inaan naga dhammaan mayso kolley waa xusuus reeb waraysi keliya maaha waa xusuus reeb oo arrimaha noocaasa dhacdooyinka noocaasa in dee aynu aada uga sheekaysano hadduu ilaahay yidhaha weliba tii arrimaha gudaha doorashooyinkii eegada qabyadu waxaan doonayaa hal su-aal inaynu kusoo gabagabayno muddo xileedkaagii 7 sannadood ahayd wixii ugu wanaagsanaa ee aad isleedahay way qabsoomeen iyo halka shay ee aad ka seexan weydo aad isleedahay niyow haddii aan jaanis u heli lahaa taa waxbaan ka bedeli lahaa
wallaahi horta haddii aad tidhaahdo maxaad qabatay ugu weynaa horta waxa ugu weyn oo aan qabtay oon isleeyahay malaha waa ta ugu wanaagsan waxay noqonaysaa labada doorasho oo ta maanta somaliland inuu maraykan iyo cid u soo ay ku bogaatay ugu soo jeedsato dad xukuma oo nabad ku wareeg kala leeyihiin tii baarlamaanka iyo dowladaha hoose oo aan weligeed cid qabanay saaran inaynu si xore u qabanay oo dhaqaalahayna weerarhayn iyo tii madaxweynaha wax kaloo aad iyo aad aan xoog u saaray oo le waa wax u wanaagsan aad qabatay mar walba dowladaha afrikaanka iyo teenaba marka doorashada la kala wareega buuq baa dhici jiray tii riyaala mooyaane marka inaad taana buuqlaana ku dhameeyey oo si wanaagsan oo degan oo weliba dadku ay warwar badan qaar badan ay qabeeras lahaayeen ninkan maaha waxaa saa ku tegi baa anaan shaqoondaya oo loraayo waxba lama ogolo wax lagu akhriyayo marka waxaan leeyahay laba tallaabo oo waaweyn marka loo eego ayay tahay tu saddexaad baan ku daraya marka labada ka eego politically waxaan ku faraxsanahay inaan gaadhay magaca somaliland iyo qadiyadeedu halkii ugu ballaanada adduunka midaheeda ku gaadhay waxyaalo badan oo maxalkooda aanan garanayn oo korbaas ama tantan korta ama ku dhibaya oo nin walow yimaadaba haysta meesha waxa weeye siyaasadda gudaheeda oo dhib badan u adeegdo siyaasadda gudaheeda toddobaatan korkii la kala helay dee taageerasha wadana way diiday waana ku dhamaystay toddoba sano iyo ku dhamaystay deetana waxaan ugu adkayd sidii loo maanaj karin lahaa arrintaa ee aan la isku dhicin kolkaa arrimaha kuwii soo maray meesha dhibaato kooxaheen eeg dadka arrintan gudo markay reeroo qulasay xal baa loo helaa ee reerku ismaqlaya ee suldaan qura leeyahay ee oday loo warleh laakiin dee reerihii waxay noqdeen iminka dee saaditii oo dee ciidaa ka badatay marka waa inaad jees halkii caaqilka meelkiisa yidhatay u gaadha aad kala hadasha waa dowlado gaar ah waa dhibaato waay dhibaatada labaad ee taa kasii darna waxa weeye halkan waxaa jooga culimadii oo intaasoo fariiq ah waxaa jooga halkan oo soo kordhay dee dhalinyaradii horta dadka raggan iminka konton jirka kule dhalinyarada iyo afartan jir iyo ilaah yaqaan qoladaasoo iyagana helay technologiga cusub oo dee reerkii ninka adu rabaled baa ku warramaya iminka daa kasto ka yaraaye toban jirkaha ayaa ku warramaya oo habeenkii waxaad akhrin iyo si aanadu baalkan isticmaalba soo wada helaya marka way jiraan qodobo dee lalahaa mahsaa haddii loo saa kala loo hanargaran lahaa kolka murmo badan oo dadka aanu galay way jiraan laakiin waxaan ku caloosabahay anugu tension dadka aan isku qabannay mid kastaba ahaadee laba qodob midna ma gelin oo waan iska hubaa anoon u jeedin waa dhici karta inuu qoladkaas kala dhaco laakiin qofkaa ka aargooso ama uu ku diidan yahay kuwa geeji marna ma isticmaalin laba wax qaranku leeyahay oo ama qaranka wuxu dhimaya oo shisheeye oo soo gala ama wax loo ogolaado wax maaragtay dee loogu habrado labada midna maan gelin marka waxaan aad iyo aad igu adkaaday oo kuwa dambana haysan doona ka joogana haysataa waxa weeye communitigii soomaaliyeed ma inagoo qura maha somaliland waata kuwa muqdisho haysata meel kasta soo la joogto dhaqankoodii ismaqalkaa reermiye ninka qura jira odaybaa noo hadlayna way ka tegeen oo intay soo shiraan odayga wax dhibtaan deetana waa nin waliba halku ordo waxba la ixtiraami maayo runtiiyo beentii laba kala saari karaayo kanaa run sheegaya kana
waayo dadka waxay badseen dee waxa markuu wax doonaya ma miir qababa marka arrimahaas waxay u baahan yihiin dee arrimahaas waxaa malaha maad dhammayn oo siday ahaa inumaad waajihin ama way kugu adkaadeen kuwaasaa jira madaxweyne aad baad u mahadsan tahay waad again waktigii xitaa waad nooga badisay intii hore aanu kaa filaynay maya insha allah dee waraysiyadan iyo qaar kaloo ka sii badan waayo mawduuc walba marka sidiisa aad loogu gudagalo ayaa dee laga bogan karaa hal waraysi haddii lays yidhaahdo wax walba kusoo kooba wuxuu noqonayaa dee wax yaroo magaranaysa dee deg dega marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waktigaaga insha allah waxaan aad u jecel lahay bal wixii kale magaranaysa arrimaha gudaha doorashooyinka adigu dee howlo badan oo kaloo jira bal iyagana inaan mar dambe kaala hadalno hadduu ilahayo haddaad waa mahadsan